sayid maxamed wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo sacmadeeqo oo buuhoodle ka xigta dhinaca waqooyi wuxuu dhashay guga la yidhaahdo gobaysane kii gurtaa xumaa hadduu shalayso geeriyooday ogoduuri cunay waa waxay galaamasanayeen. waxaa laga yaabaa dadka badankii markii ay dhagahooda ku soo dhacdo magaca iyo martabadda uu sayid maxamed cabdille xasan ku leeyahay taariikhda Soomaaliyeed baalka dahabka ah ee uu kaga yaalo taariikhdii daraawiishta ee uu hoggaanka u hayay sayidku iyo xushmadda iyo maamuuska ay sayidka u hayaan dhammaan Soomaalidu bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi iyo meel kasta oo ay joogaan inay isweydiiyaan muxuu sayid maxamed ku mutaystay xasuusta karaamaysan iyo heerkaas geesinimo ee aan cid kale la wadaagin. haddaba suuragal ma aha in muuqaal qura lagu soo koobo dagaal 21 sano soconayay iyo taariikhda sayidka. hase yeeshee waxaan isku dayaynaa in aan guud marno oo aan soo koobno dhiiranaantii geesinimadii iyo mintidkii gobonnimadoonka daraawiishta uu hogaaminayay sayid maxamed cabdille xasan kuwa oo had iyo hoyba u diiday gumaysiga dhinac walbana ka wareemay. haddaba ku soo dhowaada taariikhda sayid maxamed cabdille xasan halgamaagii iyo hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii daraawiishta. sayidku waxa uu noolaa muddadii u dhaxaysay 1856 ilaa 1920 waxa uu ahaa hogaamiyihii daraawiishta lana dagaalamay gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida isagoo kula dagaalay dhulka Soomaaliyeed si gaar ah dhulka hadda loo yaqaan Somaliland, Nugaal iyo Taleex. sayidka oo cadaanku ugu yeeraan Maad Mullah oo ah wadaadkii waalnaa waa halgamaa Soomaaliyeed iyo taariikh dalkeenu ku faano baal dahab ahna ka galay difaaca diinta iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed. sayid maxamed cabdulle xasan waxa uu ku dhashay sanadkii 1856 dhulka loo yaqaan Ciid Mudug oo ah agagaarka degmada Buuhoodle si gaar ah balliga Sacmadeeqo oo magaalada Buuhoodle 7 mayl u jirta kana xigta dhinaca waqooyi. waxaa iska dhalay sayidka Sheekh Cabdille Xasan iyo Timiro Seed Magan caana ku ahayd magaca Caraseed. Timiro Seed Magan waxay Sheekh Cabdille Xasan u dhashay 10 carruur ah oo uu u weynaa sayid maxamed cabdille xasan. hase yeeshee carruurtii uu dhalay Sheekh Cabdille Xasan waxaa la sheegaa in tiradoodu ay gaarayso ilaa 30 meeyo. sayidku wuxuu dhashay guga la baxay Gobaysane waxaana la sheegay ama la soo wariyay inuu ahaa gu barwaaqo ah oo dad iyo duunyo wixii dhashay ay hanaqaad noqdeen. sayidku waxa uu yaraantiisii ahaa kuray xoolo raac ah waxaana u dheereed inuu ahaa kuray fahmad badan firfircoon lehna karti dheeraad ah. isagoo 7 sano jir ah ayuu sayid maxamed cabdille xasan wuxuu bilaabay barashada quraanka kariimka ah. wuxuu quraanka xafiday isagoo da'yar waxaana lagu yaqaanay dadaal iyo caqli badnaan. carruurnimadiisii iyo dhalinyaronimadiisii wuxuu ku qaatay deegaanada miyiga taas oo ka caawisay inuu barto dulqaadka geesinimada iyo adkaysiga. markii uu weynaaday sayid maxamed wuxuu bilaabay inuu safarro u galo barashada cilmiga diinta. wuxuu waxbarasho diini ah ku soo qaatay meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo meelaha ku dhow. waxaa ka mid ahaa magaalooyinka uu cilmiga u tagay magaalada Harar, Berbera, Saylac iyo Muqdisho. meel kasta oo uu tagana wuxuu ka baran jiray culimada diinta cilmiga Islaamka. mid ka mid ah socdaaladii ugu muhiimsanaa ee noloshiisa wuxuu ahaa markii uu aaday magaalada barakaysan ee Makka si uu u guto waajibaadka xajka. intii uu joogay Makka wuxuu la kulmay culimo badan oo Islaam ah wuxuuna ku biiray dariiqada Saalixiyada. dariiqadan diineed waxay dadka ku boorinaysay inay difaacaan diinta Islaamka oo ay ka hortagaan gumaysaha ku soo wajahan dalalka Islaamka. markii uu sayidku dib ugu soo laabtay dhulka Soomaalida wuxuu arkay xaalad adag oo dalka ka jirta. waqtigaas dalal shisheeye ayaa bilaabay inay qabsadaan dhulka Soomaalida. Ingiriisku wuxuu qabsaday qaybaha waqooyi, Talyaanigu wuxuu qabsaday koonfurta, halka Xabashiduna ay isku dayeysay inay la wareegto dhulka Soomaali galbeed. sanadkii 1895 ayuu sayid maxamed cabdulle xasan ku soo noqday magaalada Berbera isagoo soo gutay acmaashii xajka. waxaana taariikhdu warisay in sayid maxamed cabdulle xasan markuu ka soo degay doonidii siday uu Ingiriisku weydiiyey inuu bixiyo canshuur. wuxuuse ugu jawaabay adiga yaa canshuur kaa qaaday markaad halkan ka soo degtay. intaas kadib wuxuu tegay miyiga Berbera wuxuuna faafin jiray diinta Islaamka
isagoo dadka uga digi jiray inay isdhacaan iskuna duulaan. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan markuu arkay khatarta weyn ee ku soo wajahan diinta, dhaqanka iyo xurriyadda dadka Soomaaliyeed, wuxuu go'aansaday inuu bilaabo halgan looga hortagayo gumaysiga. Sanadkii 1899 ayuu si rasmi ah u bilaabay dhaqdhaqaaqii daraawiishta. Daraawiishtu waxay ahayd dhaqdhaqaaq diini ah iyo mid qaran oo ujeedadiisu ahayd difaaca diinta Islaamka iyo ka hortagga gumaysiga. Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku biiray dhaqdhaqaaqaas, waxaana Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu noqday hogaamiyahooda. Muddo dheer daraawiishtu waxay la dagaalameen ciidamada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida. Dagaallo badan ayaana ka dhacay dhulka Soomaalida, gaar ahaan gobollada Nugaal, Sanaag iyo Sool. Qaar ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee daraawiishtu la galeen Ingiriiska waxaa ka mid ahaa dagaaladii Dulmadoobe iyo Jidbaale. Dagaalkii Dulmadoobe oo dhacay sanadkii 1913 waxa uu ahaa dagaal ay daraawiishtu ka heleen guul weyn, waana dagaalkii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield. Gaalkaas oo Soomaaliduna u taqiinay Koofil, waxa uu sayidku dilkiisa ka tiriyay gabay cajiib ahaa, kaas oo uu kula hadlayay bakhtiga gaalkaas ku soo duulay dalkeena. Inkasta oo ciidamada gumaysigu ay lahaayeen hub iyo awood badan, haddana daraawiishtu waxay ku caanbaxeen geesinimo iyo adkaysi. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu ahaa hogaamiye dadka ku dhiirigeliya difaaca diinta iyo dalkooda. Wuxuu sidoo kale ahaa abwaan weyn oo gabayo ku dhiirigeliya ciidankiisa. Muddo kadib daraawiishtu waxay dhiseen xarun xoog leh oo ay ka maamulaan halgankooda. Xaruntaasina waxay ahayd magaalada Taleex oo ku taalla gobolka Sool. Taleex waxaa laga dhisay qalcado waaweyn iyo dhismooyin adag oo noqday xaruntii ugu muhiimsaneed ee daraawiishta. Muddo ku dhow 20 sano, daraawiishtu waxay sii wadeen halgankooda gumaysidiidka. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 1920 Ingiriisku wuxuu qaaday weerar aad u xoog badan. Markii ugu horreysayna waxay adeegsadeen diyaarado dagaal oo duqeeya xarumihii daraawiishta ee Taleex. Duqeyntaasi ayaana sababtay in awooddii daraawiishtu si weyn u daciifto. Kadib burburkii Taleex, Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo qaar ka mid ah ciidankiisii waxay u guureen dhulka Ogaadeen. Halkaas ayuuna ku xanuunsaday. Ugu dambeyntiina wuxuu ku geeriyooday sanadkii 1920 magaalada Iimey. Inkasta oo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu geeriyooday, halgankii uu hogaaminayay wuxuu noqday mid taariikhda ku suntan, wuxuuna hogaaminayay halgan socday in ka badan 20 sano oo ka dhan ah gumaysiga. Taasina waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah halgamadii ugu dheeraa ee gumaysidiidka ee Afrika ka dhacay. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan maanta waxaa loo tixgeliyaa halgamaa qaran, abwaan weyn iyo hogaamiye taariikhi ah. Taariikhdiisa iyo halgankiisa ayaa weli ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee taariikhda Soomaaliya. Waxaana halkaas ku eg taariikhda iyo dagaaladii daraawiishtii uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Allah u naxariiste.